Bismillaahi Raxmaani Raxiim waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafic Show waa maalinimo Jimcaha taariikhduna ay ku aastaysan tahay 22-ka bisha shanaad May 2026 qodoboreedka maanta aan idiin haynina waxa ugu waaweyn Imaaraadka Carabta ayaa markii ugu horeysay ku biiray ololaha ay wadaan Sacuudiga iyo Qatar ee looga hortagayo Mareykanka inuu dib u bilaabo dagaalka Iran iyagoo ku cadaadinaya Trump inuu fursad siiyo diblomaasiyadda iyo wada hadalka ay la leeyihiin Iran halkii dib loo bilaabi lahaa dagaalka military sabab la xiriirta cabsi ay dagaalkan ka qabaan in dagaal cusub uu qalqal geliyo gobolka isla markaana dhaawac weyn u geysto dhaqaalahooda iyo mashaariicdooda horumarineed inkasta oo Sacuudiga Qatar iyo Imaaraadka Carabta ay ku kala duwan yihiin sida adag ee Mareykanka ula macaamilayo Iran haddana dhammaantood waxay isku raacsan yihiin in laga fogaado dagaal mar kale gobolkana gelin karo dhibaato xoog leh madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay howlaha shidaal qodista ay ka wadaan xeebaha Soomaaliya inay ku dhamaanayaan muddo 6 ilaa 9 bilood waxa uu yiri howlgalka aan ka wadno xeebaha Soomaaliya waa mid taariikhi ah sababtoo ah waa howlgalkii ugu horeeyay ee Turkiga uu ka sameeyo qodis shidaal badda ah si qoto dheer ee ka baxsan dalkeena ayuu yiri wuxuu intaa ku daray haddii xaaladaha cimilada iyo hawadu ay saamaxaan waxaan filayaa in howlaha qodista lagu dhameeyo muddo u dhaxaysa 6 ilaa 9 bilood waxaan rajaynayaa inaan shacabka walaalaha ee Soomaaliyeed aan gaarsiino war wanaagsan oo ay muddo dheer sugayaan shacabkaas oo sanado badan la daaladhacayay colaado iyo macluul sida aan wararkeenii hore shalay idinkula wadaagnay safiirka Falastiin u fadhiya qaramada midoobay Riyad Mansour ayaa isaga haray tartankii uu ugu jiray xilka madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay kadib cadaadis ugu yimid Mareykanka oo ku hanjabay in uu kala laabanayo fiisaha uu ku joogo Mareykanka haddii uusan ka harin tartanka uu jagadan ugu jiro Mareykanka iyo Israa'iil waxa ay markasta ka hortagaan kor u kac diblomaasiyadeed ee Falastiin ay ka dhaxayso golaha guud ee qaramada midoobay taas oo haddii ay dhacdo u dhaweyn karta Falastiin in ay kursiga ka hesho qaramada midoobay inay boos cusub ku yeelato qaramada midoobay dhinaca kale dadaalo lagu raadinayay heshiis rasmi ah oo ay gaaraan Mareykanka iyo Iran ayaa lagu guul dareystay waxayna Pakistan bilowday isku day lagu gaarayo heshiis ku meel gaar ah kadib markii Mareykanka iyo Iran ay labaduba diideen oo wax tanaasul ah inay sameeyaan sababtoo ah mid kasta waxa uu weli ku adkeysanayaa dadaaladiisa sida ay baahisay warbaahinta Al Arabiya caqabada ugu weyn ee wada hadallada hortaagan ayaa ah arrinta uraniumka Iran iyo waxa laga yeelayo sida ay xogtu tilmaamayso Mareykanka iyo Iran weli kama aysan talaasulin mowqifyadooda ku saabsan arrinta uraniumka waxaana sidoo kale la sheegay in haddii heshiisku meel gaar ah la gaaro uu gacan ka geysanayo ama ka geysan karo in dagaalka la joojiyo laakiin arrimaha waaweyn ee heshiiska kama dambaysta ah ayaa la filayaa inay u baahan doonaan wada hadallo dheeraad ah iyo waqtiyo badan fursad dahabi oo safarkaaga iyo mustaqbalkaada bedeli karta muddo kooban gudaheed waxaan si degdeg ah kugu diyaarinaynaa dhammaan noocyada fiisooyinka aad u baahan tahay waxaan kuu qabanaynaa fiisaha booqashada fiisaha shaqada fiisaha waxbarashada dalalka aan kuu fududaynayna waxaa ka mid ah Talyaaniga Spain Canada Faransiiska Ireland Albania Romania Ruushka Netherlands Jarmalka iyo kuwo kale badan maxaa naga dhigo kuwa aad ku kalsoonaan karto adeeg degdeg ah la talin iyo xirfad kalsooni iyo hufnaan qiimo macquul ah ha seegin fursadan mustaqbalkaaga oo maanta bilow waxaa kaa caawinaysa Safe Travel and Cargo Agency ee nagala soo xiriir telefoon nambarka shaashada kaaga muuqda